1959 Fidel Castro oo ahaa madaxweynihii dalka Cuba ayaa amar ku bixiyay in iskuuladii jaamacadaha la fasaxo muddo hal sano ah. Macallimiinta iyo ardayda waxa uu xilsaaray in dadku wax baraan ummiga ee waxba akhrin waxna aqoonin. Dadka reer Cuba boqolkiiba 50 waxay ahaayeen dad waxba akhrin waxna aqoon, balse Fidel Castro hal sano gudahood ayuu malaayiin qof reer Cuba indhaha u furay waxna baray. Qiyaastii intii ahayd awal hoos ay u dhacday oo waxay noqotay boqolkiiba 4. sidaa darteed Cuba waxay noqotay dalka ugu badan ee ka soo baxan dhaqaatiirta. Fidel Castro waxa lagu xasuustaa inuu aad u garab istaagay walaalaha Falastiin, waxa uu xiriirka u jaray dawladda Yuhuudda isagoo munaasabad walba oo caalamka dhacda u soo bandhigi jiray Yuhuuddu waxay u geystaan dadka reer Falastiin. Mar waxa dhacday inuu Castro la soo xiriiray madaxweynaha Falastiin Yasser Arafat, waxaana yiri saanad iyo ciidan military ayaan ku siin lahaa haddii labadeena dal ay dirsan lahaayeen, balse hadda waxaan ku saacidi karaa inaan kun arday ku siiyo deeq waxbarasho. Yassin ayaa diyaariyay kun arday si ay wax u soo bartaan dalka Cuba. Markii ay dalka Cuba yimaadeen waa la soo dhaweeyay, waxaan la dejiyay guryo aad loo hagaajiyay. Ardaydii qaar waxay galeen jaamacadaha caafimaadka, qaarna waxay galeen qaybta kale ee engineering-ka. Ardayda reer Falastiin marka ay soo barteen oo ay soo qalan jabiyeen waxay ku soo laabteen dalkoodii. Dhaqaatiirta ayaa si lacag la'aan u daaweyn jirtay halgamayaasha reer Falastiin ee ay Yuhuuddu sida arxan darrada u soo duqan jireen. Dhaqaatiirta mushaarkooda waxaa bixin jiray xafiiska madaxweynaha Fidel Castro.